wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Engineer Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa maanta magaalada Burco kulan tababar ah ugu qabtay cuqaasha gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda Somaliland. kulankaasi tababarka ah oo lagu xoojinayay kaalmada cadaaladda iyo qaabka ay cadaalad u heli lahaayeen dadka danyarta ah ee aan awoodin inay gutaan waajibaadka dastuurku siiyay. ugu horeyntii waxa kulankaasi warbaahintu dibadjooga ka ahayd ka warbixiyay la taliyaha wasiirka cadaaladda Somaliland iyo isku duwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer Cabdilaahi Yuusuf Jaamac. maanta oo bishu tahay 18 February 2018 kulankan ama shirkan ama workshopkan hadafka ugu weyn ee qabanay waxa weeyaan inaynu isku baraarujino adeega kaalmada sharci iyo doorka uu ku leeyahay bulshadeena iyo doorka uu ku leeyahay cadaaladda helitaanka. maanta oo 18 bisha labaad waxa gobolka Togdheer inala jooga wasiirkii wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland oo u socda hawlo shaqo. marka hore sacaadatu wasiir gobol ahaan waa ku soo dhaweynaynaa xabsiga gobolka Togdheer oo taagnaa dhismihiisu uu una qabtay muddo gaaban. maantana kulay hawlo shaqo ayuu inoo ku yimi oo waxa weeye doorkii labaad. waxa jirtay mar saddexaad oo uu inoo soo diray xabsiga u soo diray dawooyin iyo garanaysaa alaab ay u baahnaayeen maxaabiistu. taana sacaadatu wasiir waa kaaga mahad celinaynaa gobol ahaan waa kaaga mahad celinaynaa imaatinka fara badan iyo shaqooyinka ka qabanayso gobolka. ugu dambeyntii waxa isaguna warbaahinta la hadlay wasiirka cadaaladda Somaliland Engineer Cabdiqani Maxamuud Caateeye isagoo ka warbixiyay ujeedka ay ka wada hadleen cuqaasha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda. nabadoonadii iyo sheekhyadiiba waxaana idinka rajaynaynaa inaad cadaaladda idinku sugtaan idinkiiba bulshada ku dhex jira had iyo jeer dawladdu inaan wax badan aanadiisaa ula socon ilaa markiiba kan caaqilkiisii mee marka cuqaasha waxaan jeclaan lahaa in dadka laftirkooda bartaan dawladnimada waxay tahay oo ummadda bartaan waxa dawladdu tahay oo qabyaalad aan marka hore wax ku raadsan dawladnimo wixii kale damaha la iskaga yimaado laakiin dawladnimada inay weyn tahay inaan horta ummadeena barno. maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco.